xukuumadda Somaliland ayaa rusqadii kala noqotay shirkadu leeyahay ganacsade Axmed Cismaan Geelle oo ah maamulaha guud ee shirkadda Las Group. wareegto uu soo saaray wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin ayaa lagu sheegay in shirkadda Integration Shipping Service uu kala noqdeen rusqadii dalab kaga yimi hay'adaha dekedaha Somaliland. xukuumadda ayaa Axmed Cismaan Geelle Arab ku eedeysay inuu ku xadgudbay shuruucdii dalka isagoo soo geliyay dekadda Berbera madaxa Ethiopian Shipping and Logistics Service iyadoo dowladda Somaliland aan wax wara ka haynin imaanshaha shirkadaasi iyo sidoo kale madaxdeeda ayaa lagu yiri wareegtada ka soo baxday wasaaradda. eedeymaha ay xukuumaddu u soo jeedisay waxa kale oo ka mid ah in shirkadda Integration Shipping Service ay rusqadeeda dhacday 23 bishii labaad 2021 shirkadaasina ay tahay bilaa rusqad. shirkaddan Integration Shipping Service ayaa waxay ka shaqeysaa konteenarada iyo sidoo kale maraakiibta waxayna dhawaan wadanka keentay markab u rarnaa dalka Ethiopia. xukuumadda ayaa wareegtadeedan waxa ku sheegtay inaanay waxba kala soconin keenista shirkadda Ethiopia ee dekadda Berbera waxayna amartay ganacsatada inaan liisanka shirkadaasi waxa macaamilo lala yeelan karin. hore waxa uu sidoo kale khilaaf u dhaxmaray ganacsade Axmed Cismaan Geelle iyo sidoo kale dowladda Djibouti oo ku eedeysay inuu lunsaday hanti badan oo Somaliland ula soo galay